Naafada Soomaaliyeed oo baaq u dirtay dowladda kulan saacado qaatay ayaa waxa uu dhexmaray xubno ka socday wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada waaxda daryeelka iyo horumarinta dadka naafada. Kulankani ayaa waxaa ka qayb galay ururada bulshada rayidka naafada, kalastarka naafada, dallada naafada Soomaaliyeed iyo xubnaha sare ee golaha qaranka naafada. Kulankaasi ayaa si weyn looga dooday xaaladda dadka naafada Soomaaliyeed. Dadka naafada ayaa waxa ay cabasho u gudbiyeen wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada oo ay dadka naafada hoos tagaan. Dadka naafada ayaa ku dooday in wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka ay dhibaato xooggan u geysatay iyada oo la marin habaabiyay sharciga dhismaha hay'adda naafada, si qaldana loo magacaabay dad aan ku habbooneyn gudashada waajibaadka culus ee hay'adda qaranka naafada ka saaran daryeelka iyo horumarinta dadka naafada. Naafada Soomaaliyeed oo kulanka ka qayb qaadatay ayaa soo jeedisay in dib loo dhiso hay'adda naafada, sharcigana wax laga bedelo, iyo in la ansixiyo xeerka naafada Soomaaliyeed oo wax weyn ka bedeli kara ku tagrifalka dadka naafada, xuquuqdooda aasaasiga ah bulshada dhexdeeda, gargaarka iyo horumarinta dowladnimada. Golaha naafada qaranka ayaa ka codsaday ra'iisul wasaaraha, guddoonka golaha shacabka iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud in wax ay ka qabtaan musuqmaasuqa baahsan ee ka dhanka ah xuquuqda dadka naafada, taa oo ay ku tagrifaleen dad awood dowladeed u isticmaalaya. Ugu dambeyntii, dadka naafada ayaa baaq u diray hay'adaha gargaarka iyo dowladda in gurmad degdeg ah gaarsiiyaan dadka naafada oo ay saameyn xooggan ku yeelatay abaaraha. Mas'uuliyiinta sare ee dadka naafada ayaa waxa ay sheegeen in dad badan oo naafo ah looga soo tagay duurka iyo miyiga fogfog, kuwa oo aan socon karin una baahan gurmad degdeg ah iyo samata bixin dhab ah. in badan oo wax loola sheegi jiray markasta oo naafada lala kulmo ama wasaaradnimada ama wasiirnimada waa la qabanayaa. Naafana laga soo bilaabo xorriyadda ilaa hadda tanaajuh dhowr sano maxamed siyaad oo maamulaya mooyaane wax aan dowladda isku بسم الله إلهي ما تسكله ما أنت يقولي نافذ قرنك وقول كل وزارة شقادة هي شقالها هي حرمة بشدة واحدة نافذة واحدة دريال كنافذة وحقنا كلا هلين إن دب لو هجاجيو الرماها نافذة كلها كلها نافذة قرنك الصوماليات سيم من دملا ودو فريق وتريا رئيس الوزراء حكومة الفدرال الصومالية مدرس حمزة برة مدحوينها جمهورية الفدرال إن هيدك نافذة دنينا يعني إن اللفظيستان دولة قيبة هذا كل دول برلمان كقيبي سجل ونقد بيان لبعضها أي قبل. naafadu waa dadka dalka Soomaaliya u dhasho shacabka oo ugu liito dadka naafada oo meel walba xubnaha ee dadku ay ka xamaashaan la jaamici uu yahay professor uu yahay dugsiga uu ka baxay yaani aqoon buuxu u leeyahay waa in dawladdu ay kaabtaa garabna ay siisaa qofka hadii aan hamigiisa iyo amaaratay dadaalka u gaaraya hadaan garab la siin waa hami dhacaya waxa weeye dawladdu waxay dawlad u tahay ninka liita oo walaal oo maarata uu madax u yahay oo mas'uul ka yahay waxa markaa ka cabsin dawladda Soomaaliya madaxda Soomaaliya madaxweynaha rasuulka Xuseenna in ay dadkaas il gaar ay ku fiirshaan sida akhyaartiga horeysay u hadashay goobaha loo qaxay looga soo qaxay juqda ayaa looga soo qaxay dadka naafada ma isxambaari karaan ma iskaabi karaan gaari ma wataan nolol ma haystaan dadka iska dhex nooliyay sida daraadeed. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ما أنت شركة جرايد وكسب سياي وحاشي بالجراها نافذ قرن الصومالي وله هو السيح وحومات الشركة جرايد كقبتوها يا ماشي هذا أرجعي سامع جراها نافذ قرن الصومالي هرول إسرائيل أيام شركة جرايد وحوك هذا دبتوين كبربلم كدلك كجيب وحنو شيء الدولة الصومالية مدحوينها جمهورية الصومالية مدن حسن الشيخ محمود رئيس وزراء حمزة نافذ الصومالية ولا 2,800,000 أوقف نافذ قرنك الصومالية ما تحب شيء جمهورية الصومالية مدحوينها وزراء رئيس البرلمان مدحوينها جمهورية رئيس الوزراء نضمان وحيدي شيئنا وراها نافذ قرنك الصومالية والسنين سيدي سوتاجين ما هنكروح ما هنقيب دلك جمهورية البلاد
waxaan xaq u leenahay golaha naafada qaranka anagoo ku hadlayna naafada Soomaaliya koox yar oo madaxweynaha u tagtay koox yar baan qolii dhabta waa inaan nala kulantaan madaxweyne ra'iisul wasaare waa inaan nala kulantaan ra'iisul baarlamaan waa inaan nala kulantaan baahideena saa u sheegno maahin dad waalan maahin dad mataqaana aan Soomaali ahayn Soomaaliya nahay naafo Soomaaliya nahay xaq waxa u leenahay baahida aan qabno inaan sheegno in alla intii hadal la yiri oo la soo jeediyay dawlad iyo madaxda wadankaba waa ku raacsanahay intaas aan xarabnaa in wax qabad muuqda loo helo annagoo rajeynayna dawladda wixii nooga aan uga baahanahay in wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada waaxdeeda naafadu ay xiriir noola sameey doonto kana heli doona diilaydmo anigoo markaa ku soo gabagabeynay hadalkayga gudoomiyaha golaha naafada qaranka.